المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وزير الدولة وزارة الأمن عبد الله وزيرك حقيقة دولست هودا تلك حقيقة قيبة بوليسك يسدوها كلوميسي خيرات كبدا السودانك نبضوندا odayaasha haweenka saxaafadda ciidamada dhamaanteen waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Cafan degmadii kaliya ee hadda aan tirsanaynay gudoomiyadii baan ka tegay waa ka raaligelinayaa mister saaxiibkayna saas dhamaantiin intaa ka bacdi horta degmada Tawfiiq waxaa si official dowladda Puntland ay ugu dhawaaqday sanadkan hadda aynu ku jirno waxay martay wadadii loo mari jiray degmooyinka golaha xukuumadda la horgeeyey golaha xukuumadda waa ansixiyey golaha baarlamaanka la geeyey golaha baarlamaanku waa ansixiyey kabacdina waxa bulletin official ku soo saaray madaxweynaha dowladda Puntland saasay waxay kaga mid noqotay 5 degmo ee gobolka Mudug ka kooban yahay. degmada Tawfiiq magaalada Gaalkacyo wadada loo maro 190 kilomitir buu jiraa dhinaca leexa hadii la marana waxa u jiraa 200 kilomitir. gudoomiyaha gobolka hadda waa maqan yahay hadda ka hor 3 habeen iyo 4 habeen inuu joogay baan jecelahay isagoo halkaas markii xaalado ay ka jireen buu tagay mas'uuliyiin badan oo gobolka ka tirsan way sii mareen haddana waxa ugu dambeeyay wasiirka amniga ee dowladda wasiir dowladda Puntland ee amniga Cabdullaahi. degmada Tawfiiq marka ugu horeysa jaama xilligii intaas markay soo martay dowladda Puntland ay ka soo gudubtay waxay ka mid noqotay degmooyinka gobolka Mudug waxay isla markiiba gashay inay la mid tahay oo la xuquuq tahay 4 degmo hore u jiri jiray ee gobolka Mudug bay markiiba ka mid noqotay. waxaa jira shil laba bilaa oo degmooyinka gobolka loo qabto oo hay'ad ka mid hay'adaha ay naga caawiso. shirkaas kii ugu dambeeyay waxaan kaga dhawaaqnay in degmo cusub ay ku soo birtay gobolka Mudug iyaduna saacada laga bilaabo xubnaha ilaahay jirtay ay ku yeelanayso. Allahumma naxariista janna Allah ka waraabiyo waxaa goobjoog ka ahaa oo ka mid ah raggii meesha fadhiyay markaa Maxamed Xuseen oo gacan ka xaqdara ku dhashay asagana aan leenahay ilaahay naxariista janna ha ka waraabiyo. waxaa hadda jira tirkoob lagu samaynayo Puntland oo dhan wasaaradda qorsheynta wadda gobolka Mudug 5 degmo oo ka qayb galayaan degmada Tawfiiq xubnaheeda oo loo soo diyaariyay waxaa laga xisaabtamayaa insha Allah taala gudoomiyaha degmada Tawfiiq asagana loo gudbinayaa waxaana lagu tirkoobayaa degmo kasta tirada dadka inta wax barata nolosha dadka meelaha caafimaadka ka jiro dhamaanteed baa lagu tirkoobayaa. saas oo degmada Tawfiiq gobol ahaan iyo dowlad ahaanba inkastoo wasiiradu iga dambeyn doonaan wixii sharci ay u lahayd ay heli doonto maalinkii madaxweynuhu uu ku soo saaray bulletin officialaha ama saxiixa madaxweynaha ku soo baxay ugu dambeysay wixii ka dambeeyay inay ka mid tahay degmooyinka gobolka Mudug xuquuqda ay leeyihiin oo kala ay yeelanayso. waxaa xiga degmo waxaa dhisa dadka gudaheeda ku nool waxaa wax u qabta oo amnigeeda dhisa oo iyada dhisa dadka gudaheeda ku nool. waxaan ka codsanaynaa dadka ku nool degmada insha Allah meeshooda lagu tagi doonaa inay xoogga saaraan inay degmooyinka kala soo gaarsiiyaan inay degmada ay laftooda gacanta ku qabtaan oo amnigeedana sameeyaan waxaan dhisan. wasaaradda waxbarashadu ayadan degmo noqonba waxay ka fulisay qaybta waxbarashada hadda inuu jiraan maleenayaa uu shaqeeyaa iskoolkaasi. waxaa kaloo aad xoog aan ugu raadinayna haddana rajo fiican aan ka leenahay inay degmada Tawfiiq ay hesho ceel biyood waayo haddaysan meesha ceel lahayn xogaa duruufta biyo aad bay u adkaanaysaa. iyadana insha Allah taala sanadkan gudihiisa ama sanadka cusub bilowgiisa waxaan rajo weyn ka leenahay inaan degmada Tawfiiq u helno ceelkii biyaha. waxaan ugu baaqayaa qurbajoogta reer Tawfiiq dibadaha ku nool hadda ina dhageysanaya ama ina daawan doonaba
بدنا ذلك هذا واحد بس ودسمي سكعت كوهية واحد بدنا تقول بجوت ذلك قول بجوت على هذا توفيق وحن قعد سنة إن حوج بقولك أو بقول صاران إن دقمة التوفيق إنسان ويمال جليان وشركة سكول هذا وزيرك اللي وصل دوينا دقمة الوقع الله يوم waxay qabteen ay kaga hadlaan baan doonayna hadii Allah uu daliirado oo na ka codsan labada qurba joogta ee kuma daahay waqtigu iska gool yahay waxaan jeclaanahay inaan kaga hadalno xagga amniga guud ahaan gobolka mudug alxamdulillah iska amni duruufo iyo reer iska jiraan laakiin waxaan codsanaynaa inaad amniga nagala shaqaysaan dadka reer Puntland halka jooga dhamaantiin inaad amniga qaybtiina ka qaadataan uu soo hagaagayaa waxaan sii hagaajin karo dadka shacabka oo dhamaantood boolis noqda haddaan dadka shacabka dhamaantood boolis noqonin oo aysan soo sheegin qofka dhibaatadooda boolisku waxba ma qaban karo runtii hadda aad bay dadku u shaqeeyaan inaan intaa laga sii badiyana rajawi markalna waayo waxaad aragteen maalin walba ulxun halkaa mas'uuliyad ku sii taago raggeena ugu qiimaha badnaa dilaya kabacdina meeluu ka baxay ma garan karno إلهي وحنا وديسنا مرة إن شاء الله إلهي أمن بوحنا سيو جودها الصومالي وضلنا وسيو وعدنا وحنا نغفرا آيات القرآن كهاي والشيخ هل كان كهنا يا أخي ذات الوفا إذا بدأ وضعك الجاهلة قالوا إلهي يجي هاي مقدروا دقمنا وحنا دقمنا القرطان لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته